daawadayaal ku soo dhawaada waa barnaamijkii aad uga barateen Saxafi Channel ee ku saabsanaa taariikhda aktarada Bollywoodka. Caawana waxaan ku soo qaadan doonaa Sunil Shetty ama Balwan ee ka bogasho wacan. Caawa waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa xidigaha Bollywoodka nin ka mid ah. Waa ninka ay shirkadaha ugu wacaan Anna ama Balwan. cid kalena ma shakhsigaasi ee waa Sunil Shetty. Sunil Shetty waxa uu dhashay 11 Agoosto 1961 waxa uuna ku dhashay magaalada Mulki Mangalore Karnataka ee dalkaasi India. waxa uu leeyahay maqaaxiyaha ugu waaweyn dalkaasi Hindiya iyo shirkadaha dharka soo saara kuwooda ugu caansan ee dalkaasi ku yaala. Sunil Shetty waxa uu la shaqo bilaabay filim sameeyaha caanka ee Talash Mehra waxaana loo dhiibay filimkiisii koowaad ee Ek Aur Fulati balse filimkaasi qabi ayuu noqday. waxa uuna bilaabay sanadkii 1992 filimkiisii labaad ee uu ku soo caan baxay ee Balwan. filimkaasi uu noqday filimkiisii ugu qiimaha badnaa kana mid dhigay xidigaha ugu caansan Bollywoodka. waxa dadka aad u soo jiitay daawanaya filimka qaabjiliinka Balwan oo ahaa mid cajaa'ib ah iyo jirkiisa oo aad u dhisnaa. waxa uu Balwan bilaabay ijlitaanka filimkiisii labaad ee uu la jilay atooraha caanka Akshay Kumar waqti Hamara Hai oo la oran karay waxa uu ahaa saaxiibtinimo bilow ah Akshay Kumar iyo Sunil Shetty. Sunil Shetty oo arintaasi ka hadlayay wuxuu yiri saaxiibtinimada aniga Akshay Kumar waa inaan arkaa nasiibkeeda. Sunil Shetty waxa uu bilaabay jilitaanka filimkiisii saddexaad ee Behjan waxaana filimka la jilayay Saif Ali Khan, Shilpa Sharodkar iyo Madhu. intii uu ku guda jiray jilitaanka filimkan qaladaad badan ayuu sameeyay waxaana ka mid ahaa qaladaadkiisii inaan wax ku sheego ayaan rabaa. maya waa iska baxaya bas maya waxba iska bax. dadaal badan uu sameeyay kadib Balwan waxa uu ka mid noqday aktariinta ugu jiliinka fiican. gaas biiken inaan ku gursadaan rabaa maya waa iska diidi kartaa. waxaana ka mid ahaa filimadiisii filimaanta ugu qiimaha badnaa oo blockbuster-ka noqday filimka Mohra oo uu la jilay Akshay Kumar. intaa kadib waxa uu ku xijiyay jilitaanka filimaantiisii taxanaha ahaa Gopi Kishan oo asna noqday mid blockbuster ka soo baxay. Afasar Police 100 ayaa ku sii xigay. intaa kadib waxa uu sii bilaabay jilitaanka filimaantiisii kale oo ay ka mid yihiin kuwaas Humhain Be Misal, Suraksha, Rakufir, Gadar, Sabot iyo Takar. haddaan aniga cid balan la galaayo maahan inay cid ii qabato. waqtiga balanta aniga ayaa qabta ee maahan inaad adiga ugu amartid. intaa kadib waxa uu jilay filimkiisii Border oo uu la keenay Sunidol oo uu ka qaatay qayb libaax leh. filimkaas oo ahaa filim aad u qiimo badan. Sunil Shetty dadaalkiisii waa uu sii watay sanadii 2000 waxa uu jilay filimkiisii dadkan oo uu ku helay bilad sharafeed. intaas kadib kuma uusan akeenay waa uu sii watay jilitaankiisii waxa uuna ka mid noqday atooriyaasha ugu caansan dalkaasi Hindiya. waxayna ahayd biladiisii koowaad ee uu ku guuleysto. Sunil Shetty intaa kadib wuxuu bilaabay Hera Fairy silsilada la yiraahdo oo filimaanta uu la jilayay Akshay Kumar iyo Paresh Rawla oo ka mid ahaa filimaanta ugu qosolka badan ee ay soo saareen Akshay iyo Sunil Shetty. intaa kadib waxa uu furtay Sunil Shetty shirkad soo saarta daangada oo la yiraahdo Popcorn. ugu dambeyn Sunil Shetty waxa uu ka mid yahay aktariinta ugu caansan dalkaasi Hindiya kana mari dhaliyay natiijadii ugu soo galay jilitaanka filimaanta. Sunil Shetty waxyaabaha saacidina waxa ka mid ah jilitaan u gaar ah oo asaga u gooniya. waxaad leedahay sangaaniya ayaa i dhalay to fulay baa tahay uma aaraysa aabay anaa u aaraya idil maxaad samayn kartaa igu dhufo xabad igu dhufo. haddaan qoyskiisa wax yar idinka taabanana xaaskiisa waxaa la yiraahdaa Maya Shetty waxayna u haysaa 2 caruur ah Atiya iyo Aha. xaaskiisu waxa ay ka shaqeysaa NGO khayri ah oo aan ahayn kuwa ganacsiga ah. intaas ayada ayaa saxaafadda u sheegtay. Sunil Shetty filimaanta uu ka qaatay qaybta libaaxa waxa ka mid ah filimaanta soo socda waxaana ka mid ah Dilwala, Border, Refugee iyo Mayhona oo uu ka mid ahaa dadyowga jilitaankooda qaybta libaaxa la ka qaatay kuna guuleystay jaaizooyinka. Sunil Shetty waxa uu ka mid yahay aktariin dadaalkooda muujiyay guulihii ay lahaayeen gaaray. daawadayaal intaasna waxaan ku soo afmeerinaa taariikh nololeedkii Sunil Shetty. ha moogaanina inaad subscribe tiraahdaan Saxafi Films.
dhammaan bahda Saxafi Films channel-na waxay idin leeyihiin sidaa iyo nabadgelyo.